khilaaf ayaa ka taagan odayaasha soo xulaya xubnaha cusub ee baarlamaanka galmudug iyadoo qaybtood shalay lagu xareeyay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug qaar ka mid a odayaashan ayaa hore ugu sugnaa magaalada dhuusamareeb kuwo kale ayaa goobta ka maqan halka qaar kale weli ay khilaaf ka taagan yihiin guddiga farsamada ee maamulka galmudug ayaa odayaasha la xareeyay oo ay la hadleen waxay u sheegeen in ay muhiim tahay dedejinta xubnaha cusub ee baarlamaanka galmudug sida waqtiga kooban ee lagu jadwaleeyay jadwalka doorashada iyo dhismaha maamulka galmudug aan loo baalmarin gudoomiyaha guddiga ayaa waxa uu sheegay in habraaca loo maray odayaashan la xareeyay in ay tahay odayaashii saxiixay xubnihii baarlamaanka galmudug ee magaalada cadaado lagu soo dhisay 2015 taasoo uu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha liis ay ku qoran yihiin ay u soo gudbisay wax walba waa inay raadraac leeyihiin ama reference raadraaca aan u raacno waxa weeye inaad tihiin odayaalkii markii cadaado lagu dhisayay 2015 dowlad goboleedka galmudug soo xulay xildhibaanadii galmudug ee lagu soo dhisay cadaado xilligii 2015 isla odayaashii ayaa tihiin waxaan rabaa inaan la wadaago oo la tuso wax anigu aan jeebkayga ka keensaday ama guddigu intuu ka karay oo shakhsiyaad ama dad ay jecel yihiin gooni u keensan inaynan ahayn inay tahay wax ka yimid habraacaas iyo taariikhdaas ku astaysan 2015 markii la dhisayay galmudug laguna dhisayay cadaado halkan waxaa ku uga jeedaan warqadaas ayay ku qoran yihiin 46 qof oo saxiixa oo soo xulaya xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug waxayna ka timid wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib-u-heshiisiinta dowladda Soomaaliya dadkii halkaas joogay inay cadaato ayaa la rabaa wax laga bedelay ama wax lagu soo darsaday haba yaraatee oo aan 3 qof ahayn iyadana wasaaradda arrimaha gudaha ay process u martay ma jiraan haddaba mid ka mid ah beelaha degan gobolka mudug ayaa arrintaas cabasho ka keentay iyada oo sheegtay in markii horeba qalad loo xulay odayaashii dhaqanka ee u soo xulay xubnaha baarlamaanka ay ku leeyihiin galmudug 2015 magaalada cadaado taasi oo ay sheegeen in dowladda Soomaaliya iyagoo kala hadlaya 2015 in ay dhagaha ka fureysatay mar kalena ay u muuqato in qaladkii ka dhacay cadaado mid la mid ah dhuusamareeb uu ka dhacayo iyaga oo sheegay in dhammaan shirarkii ka horreeyay xareynta odayaasha ee uu ka mid yahay kii dib u heshiisiinta ay odayaashooda ku sugnaayeen laakiin markii la soo gaaray xulista xubnaha baarlamaanka galmudug laga wareegay odayaasha oo loo wareegay dhinacyo markii hore aan beesha ku matalayn xulista xildhibaanada golaha baarlamaanka cusub ee galmudug afayeenka odayaal ku kulmay magaalada dhuusamareeb bedel maxamed kulane ayaa risaalo u sheegay waxaa saxeexay nin la yiraahdo cabdinaasir jaamacseed oo beesha inuu la yiraahdo ah oo aan wada jiraba ka mid ahayn 2 xildhibaan buu saxeexay asagoo siyaasiyiinta markaas socotay ay rabaan inay ku doodaan beesha xildhibaanadooda waa nin aan beesha ka mid ahayn qoondar ku ahayn sharci darradaas ayuu ku saxeexay haddana mar labaad waa inuu saxeexo may waa cabdinaasir jaamacseed suldaan guud oo beesha sacad ma ahan waa nin ka sheegtay asay waxanka saartay ma ahan suldaan guud oo beesha sacadnimada laga suldaan guud oo beesha sacad ma leh daaradda ayadoo qoraalna way gudbinay ayadoo midnahana waa ka sheegnay beeshu ninkaas oo shalana sharci darro u saxeexay beeshana aan ka mid ahayn 2 xildhibaan oo sharci darro saxeexay guddiga farsamada ayaa waxa ay qareen inay jirto khilaaf ku aadan odayaasha saxda ah ee saxiixaya xubnaha cusub ee baarlamaanka galmudug waxna guddiga ay sheegeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddigooda ay ka shaqeynayaan in dhinacyada wax ka tabanaya odayaasha la xareeyay ay kala hadli doonaan si maamul galmudug ah oo dhammaystiran uu uga soo baxo magaalada dhuusamareeb waxaan ognahay in still ay shaqo dhiman tahay shaqadaas oo ah in odayaalkaas ayaguna soo odayaashaas wasaaraddu ay soo gudbisay ay qaar ka mid a dood ka taagan tahay
qaar ka mida maaragtay la isku haysto qaar ka mida aysan imaanin oo ay maqan yihiin qaar ka mida maaragtay ay jiran yihiin kuwaasna waxaa u yaalla habraac iyo xallin ama guddi xallin khilaafaad oo qabaa'ilada iyo odayaasha iyo dadka la isku haysto hawshooda gelaya ayagaas ayaana maaragtay waajibaadkooda yaa gudanaya ayagaas ayaana soo kala saaraya waxaan rajaynaynaa inaysan badnaanin laakiin inta jirta macnaheedu ma ahan hadda qof kasta markuu halka yimaado inay tahay qofkii ugu dambeeyey oo hawsha soo gebagabeynaya macnaha dood qofkii ay ka socoto wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga farsamada ee maamulka galmudug ayaa ku howlan dhismaha maamulka iyada oo weli ay taagan yihiin dhinacyo wax ka tabanaya maamulka galmudug magaalada dhuusamareeb odayaashii ku sugnaa ee sheegay in odayaasha la xareeyey ee soo xulaya xubnaha baarlamaanka cusub ee galmudug ay diidan yihiin waxaa sidoo kale magaalada kula sugan hoggaanka ururka ahlu sunna oo iyaguna qaadacsan sida ay wax u socdaan sidaasoo kale waxaa iyaguna gooni u taagan oo inaanay waxba ka quseen warbaahinta u sheegay waxgaradka magaalada cadaado iyada oo dowladda soomaaliyana ay sideeda ugu howlan tahay dhismaha maamulka galmudug dhinaca kale heshiis ayaa laga gaaray beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud axmed tifo ayaa faahfaahinaya waxaa heshiis rasmi ah laga gaaray xiisad colaadeed oo u dhexaysay laba beelood taas oo bilihii lasoo dhaafay ka taagneed deegaano dhaca gobolka galgaduud beelahan ayaa dilil la xiriira aanooyin qabiil waxa ay isugu geysteen deegaanada bangeele iyo xinjilib oo dhammaantoodba dhaca gobolka galgaduud ha yeeshee ugu dambeyn waxaa heshiis la dhex dhigay beelahaasi munaasabad lagu heshiisiinayay beelaha waxaa ku sugnaa waxgarad labada dhinac ka socday iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad ee deegaanada galmudug ka howlgala cabdilcasiis cabdullaahi qooje iyo sidoo kale taliyaha darab ee qaybta 12aad mukhtaar cabdulle xuseen kuwaas oo ka qayb ahaa waawaanta maleeshiyaadka dagaalamay waxgaradka labada beelood ayaa isla qaatay qodobo ay ku heshiiyeen oo aad muhiim u ahaa iyaga oo sheegay in ay rajo ka qabaan in dagaalka uusan dib mar kale usoo laaban waxaana ay inta ay ku guda jireen heshiiska intii ay ku guda jireen xaaladda heshiisiinta sidoo kale la isla gartay in mar dambe aysan dhicin xabad qof waxyeelaysa ama dhaawac ama dhimashaba taliyaha ciidanka qaybta 12aad ee xoogga dalka cabdilcasiis cabdullaahi qooje ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo maleeshiyaadka dagaalamay inay fuliyaan qodobada heshiiska si ay nabadda uga wada noolaadaan bulshada ku nool deegaanada lagu dagaalamay bulshada deegaanada bangeele iyo sidoo kale xinjalab waxa ay saameyn ku yeeshay dagaalada soo laabtay ee ka dhaca aagaasi waxaana ay hoos u dhigeen horumarka deegaankaasi iyagoo sheegay odayaasha labada dhinac ku matalaya heshiiskan in aysan dhici doonin mar kale in deegaanada kale ay ka hoos maraan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa xubno ka mid a xisbiga himilo qaran wuxuu ku eedeeyey inay colaad ka horanayaan magaalada dhuusamareeb cabdiqaadir maxamed ayaa faahfaahinaya xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa marka hore ka hadlay go-aankii xisbiga himilo qaran uga saareen xubinimada xisbiga isagoo ahaa xogeyaha xisbiga waxa uuna sheegay in go-aankaas uu soo dhoweynayo ha yeeshee uu eedan u jeediyey xubno ka mid ah xisbi himilo qaran oo hogaamiye madaxweynihii hore ee dowladii kumeel gaarka eed ee sheekh shariif sheekh axmed waxa uu sheegay xildhibaanka in xubno ka mid ah xisbiga ay iska aragti ka noqon waayeen arrimaha masiiriga ee galmudug isaga oo sheegay in xubno ka mid ah xisbiga himilo qaran ee colaad ka abuurayaan deegaanada uu kasoo jeedo ee dowlad goboleedka galmudug xubnaha xisbiga qaarkood waxaan aad uga kala aragti duwanaanay isku day ay wadeen siyaasiyiinta qaarkood ah in colada laga horiyo deegaanka aan anigu matalo ee dhuusamareeb iyo guud ahaan galmudug si foodadaas looga dhex raadiyo dana siyaasadeed oo aan u arkayay inaysan deegaanka dani ugu jirin ayuu yidhi xildhibaanka sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka midaysan yihiin arrimaha ku saabsan dhismaha dowlad goboleedka galmudug ha yeeshee xubnaha xisbiga qaar u cuntami weysay waxa uuna mar kale
beeniyay in ciidan Ethiopian oo ka mid ahayn AMISOM la geeyay magaalada Dhuusamareeb isla markaana taasi isaga laftarkiisa uu soo ogolaan doonin ma jirto ciidan Ethiopian ah oo aan kan ahayn AMISOM oo Dhuusamareeb jooga laakiin waxaan rabaa inaan cadeeyo marnaba in aan raali ka noqonaynin in ciidan Ethiopian ah iyo mid kale toona ay fargeliyaan nidaamka doorashada ee Galmudug sidoo kale lama aqbali karo in bunbunis iyo been abuur lagu dhaawaco hanaanka dib-u-heshiisiin iyo doorasho Galmudug ayuu sii raacay hadalkiisa kasiko inuu soo dhaweynayo xildhibaan Cabdixakiin go'aanka ay xubnaha xisbiga Himilo Qaran ay ku sheegay inay xubinnimadii xisbiga ay ka qaadeen ayaa haddana waxay u muuqataa in xubnaha xisbiga aysan markaasi ku kala aragti duwan yihiin arrimaha ka socda deegaanada dowlad goboleedka Galmudug 10 sano ayaa maanta laga joogaa markii uu dhacay qaraxii Shaamow 3 December 2009 xilli hoolka hotelka Shaamow ee magaalada Muqdisho ay ka dhaceysay munaasabad ay ku qalin jebinayeen mid ka mid ah dufcadaha dhameeyay caafimaadka ee jaamacadda Banaadir taasi oo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin dawladeed dad shacab waalidiin ardayda qalin jebinaysay iyo marti sharaf kale dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ee xilligaas uu hogaaminayay Shariif Sheekh Axmed ayaa wasiiro ka tirsanaa ku sugnaa goobta iyadoo sidoo kale ay ku sugnaayeen dhaqaatiir qaarkood barayaal ka ahaa jaamacadda Banaadir iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale iyo waalidiin ardaydooda ama caruurtooda ay ka qalin jebinayeen jaamacadda Banaadir dadka ku dhintay qaraxa waxaa ka tirsanaa ama ka mid ahaa wasiirada waxbarashada tacliinta sare ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka